waxaa la yidhahdaa Cabdicasiis Maxamed Aadan. Waxaan ahaa arday dhigta iskuulka 16 Juun. Waxaan waaye awoodaan ku tago maanta. Qaarkayna aan kula tartama. Waxaan naga rabay xanuunka maanta hayaa sidoo arkaysa. Waxaan ummadda Islaamka ka codsanayaa in Ilaahay caafimaadka bixinay soo caawiyaan ee caafimaad lagu helay soo caawiyaan. wiilkan yar waa xanuunsanayaa qoyskiisa waa faqiir ma haystaan adduun ay dhakhtar dibadeed ku geeyaan. magacaygu waxaan Cismaan Faarax inanka yar oo dhalay wax guri la yiraahdo Cabdicasiis Maxamed Aadan. waxaan ku lagu qalay isbitaalka Hargeysa. waxa la qalay 3 jeer baa la qalay markii wixii laga qalay dhagax buu ahaa kaadi mareenka laga qalay bartii laga qalay muna kaadi muga soo baxay wali alaan halkii bay qoyeen oo halkii wali caafimaad sare aan kama haystaba intii dhakhtarkii Hargeysa gudihii oo dhan waa loo mariyay waxa loo qaban karaa ma jiro intaas oo dhan waxaan u dhigaa kabdhadaha u dhigaa shamca umalaha u yaala habeenkii masajeer ma kaadi ka bedela qoyantahay dhinaciisa saliid iyo maxaan ku raday baasni ma ku ilaaliyaa si miski u dhici laayeen habeenkii aan mariya habeenna waxaan xanuunsanayaa oo ma seexan karay dalka gudihiisa waxa laga qaban karaa ma jiro wali awoodaan dhakhtar ku geeyo oo maanta ku baantoon meel dhakhtarada dibadda dalka baad meel ka sabgeeyo ma hayo oo ma haysto ilaa bas ayuu halkii aan deganahayna aanu malihi in yar baan sii degay bari kale maalin hadii ka guur leeyahay barana kuma magaalada marti baan ku hayo meelan ku hayana ma hayo meelan uga guur hadii maanta la dhisana ma hayo marka muslimiintu meel kasta ay joogaan waxaan ka codsanayaa ilmahaasi wixii gargaar iyo wixii kaalmo ay ugu kaalman karaan igu soo kaalmeeyaan igu soo gargaaraan. xaaladiisa waa inoo sheegtay hooyada ilmaha dhashay waxay leedahay ummadda islaamka ah isoo caawiya walaalaynu gargaarno marka dadka dhibaataysan u gargaarna ilaahay noo caawinaya walaal u naxariista dadka jilicsan walaalaynu gargaarno dadka dhibaataysan aynu caawino qofka buka aynu garab istaagno qofka baahan walaal qoyskan danyarta ubad ilmahoodu ka xanuunsanayo ilaahay darteenu soo caawino waxaad heli karaysaan ugu soo hagaajiye ciwaanada iyo lambarada shaashadeedii ka muuqda walaal